قلبي إليك تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة بشهر مزاياه أكمل تفوق الشهور سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان walaalahan daawanaya meel baduuka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkiina aan ugu hadlaynay qisada Nabi Muuse alayhi salatu wassalaam. waxa marayna waxay tahay in hooyada Nabi Muuse ay aragtay wiilkeedii aad iyo aad ka u jecleed Nabi Muuse alayhi salatu wassalaam. Nabi Muuse wuxuu ku sii barbaaray waxay tahay guriga Fircawn ilaa uu awood u ka yeeshto تربية متك وجوانا أحسن أيو جوري أسوق هلاي كدب معلمها كمت أيا موسى عليه الصلاة والسلام وحوك وحيت هاي لبنن وإزدجالية مدنا وحوها وحيت هاي دتك قبطيين مصر دجن إيوه نيك كلام وحوها وحيت هاي نين كمت غبني إسرائيل دتك لليدي جري كدب أيا وحاد على وحيت هاي يعني نو موسى وجا إن غبني إسرائيل الليذ ولا الدليل لو حد جود بيه وحلمته كده بقى وحوس ده وحيته كعلي كالدفاع أيو سيري كده بقى يعني كخبطيين كأيو قبطي يعني وكلا جمي وحورة وحيته إنه كلا عليه كده بقى وحد على وحيته ما دام وأهانين أود له نك خبطيين يعني نك كلا وكل إنتاج ما كوساس وكلا توري إسلامك يعني وحاد على وحيته إنه يعني نفسده يكبح الأول انتبه نو موسى آديات بقولنا حي يعني صوبته موسى النغمين أسيجا إن يعني أودله مكو أنت سؤال كسمكو حويرة وحيته ربي ونفسده إذا أيام ظلمي إجرى على النقط أسيجوا عبسنية كدب أيا فرعون يقوم كيسا وحالو شيء وحيته هاي إن لجد لي قف إن لجد لي qofkaasna qofka dila lama ogo sababtoo qofka kaliya meesha joogay waa ninka reer bani Israa'iil ka iyo Nabi Muuse iyo sidoo kale qofka la dilay waxa dhacday waxay tahay ninkaas waa la raadinayay maalmo kadib Nabi Muuse wuxuu waxay tahay ninka dagaad uu difaacayay iyo nin kale oo is haysta kadib wuxuu yiri waxay tahay ninki Muuse iga qabo iga celi كدب نوم موسى وحيرة وحيته هذيك قف حد قدب بدن آيات هاي يعني محاوى أساس كدب نكي وحوم لي وحيته هاي إن أسيج للدل غود نوم موسى وصي سعودي نكي وحوم لي إن أسيج يعني للدل غود وحيرة وحيته هاي نوم موسى يعني موحد سيد الشلة قف أودي شماغ بتماتا يعني إن أيدش هذيك وحاته قف يعني أو فساد غبا آياته كدب عرنت ويفش المطي ماشي ضد جوجوري وحي مقلة وحي تهي إن يعني نو موسى شلي ودلي نكي السويدين يا دلي إلا ما بلغادين يا بخوف كاس خوف كدلي أسينا وحويرة وحي تمو حاربتا إنا إدش دانيك سيد شلي أودش يعني خوف كاكلا أغنت هو فشل مطي أغنت ما كيف فشل مطي كدب يعني وحي قاعت وحي تعيد مضى فرعون نو موسى آديات بقي إلا الدلاء أيوك بقي كدب محاد عاي محو سمية حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله أرنت مقالة أي كفافتي dadka dhan waxay isdhahayeen maxaa lagu sameyn doonaa Muuse
fircawn iyo qoomkiisa way tashteen waxay ku tashteen waxay tahay qof qibti ah sidee loo dili karaa qof anaga reerkeena ah sidee qof reer bani israa'iil uu dili karaa taasi macquul ma ahan taas awgeed waxay go'aan ku gaareen waxay tahay innahu muusa calayhi salaatu wasalaam la dilo ayadoo sidaas ay tahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay wajaa'a rajulun min aqsa almadiinati innahu muusa calayhi salaatu wasalaam asagoo murugeysan ayaa waxaa u imaada waxay tahay magaalada geeskeeda ugu yimid qof soconaya ilaahi subxaanahu wa tacaala ma sheegin qofka uu yahay laakiin wuxuu tilmaamay waxay tahay ficilka uu sameeyey ficilkaasoo ah wuxuu ku dhahay waxay tahay ina almala'a ya'tamiruuna bika dadkii fircawn go'aamada la gaari jiray wasiiradii iyo asiga waxay go'aan ku gaareen go'aan cad aan laga leexan karin liyaqtuluuka inay adiga ku dilaan amar ayay ku bixiyeen kadib ayaa wuxuu ku dhahay fakhruj innii laka min annaasixiin si degdeg ah hadda muusow bax oo ka dheera oo ka orod yani inay ku dilaan ay rabaan ka orod ayuu ku dhahay innii laka min annaasixiin aniga waan ku nasiixanayaa maxaan ka baraynaa mataqaana aayadahan waxaan ka baraynaa waxay tahay qof hadda aragtid walaalkaaga dhibaataysan oo kale ama dhib ku sugan xaaladiisa ay dhib tahay inaad u nasiixaysid inaad tala siisid ay tahay wax ugu fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala ma sheegin qofka uu yahay talada bixiyey oo nabi muuse ku dhahay bax oo magaalada ka bax fircawn ku dili rabaa laakiin wuxuu sheegay waxay tahay ficilka uu sameeyey ninkan oo ah inuu nabi muuse tala uu siiyey lidaalika yani ficilka wanaagsan aniga adiga waxay noo tahay cashar ayay noo tahay waxaa loo baahan yahay waxay tahay qof kastoo dhibaataysan markaad aragtid ama xitaa naftaada inaad wanaaga u sheegtid nabigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay waxay tahay xaqa muslimiinta ay isku leeyihiin waxaa ka mid ah inay isku nasiixeeyaan nasiixo talo waay macnaheeda talo oo qalbiga ka soo baxday oo isla markaas sida adiga aad jeceshahay markaad dhibaataysantahay ama aqaldantahay ama waxyaalo kaa dhacaan lagu toosiyo in qofka kale saas oo kale u toosisid waa xaq adiga aniga isku leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu barayo qisatu muusa oo ah qof dhibaataysan markaad aragtid inaad u nasiixaysid ayaa loo baahan yahay حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل aadaabta nasiixada waxaa ka mid ah ninkan aadaabtuu nabi muuse calayhi salaatu wasalaam ugu nasiixeeyey oo ah in qofka markaa rabtid tala inaad siisid horta talada ha siinin kuwa u sheeg ujeeddada iyo dhibaatada wuxuu dhahay waxay tahay ina almala'a wuxuu u sheegay waxay tahay in fircawn iyo qoomkiisa ay u tashteen ay rabaan inay dilaan yani kuwa dhibaatadii iyo xaaladii u soo bandhigay kadib wuxuu ku dhahay waxay tahay fakhruj bax kadib uu talada siiyey lidaalika qof markaad tala rabtid inaad siisid ama nasiixa inaad siisid aad rabtid waa in marka koowaad adig aa og tahay sababtaa u siinaysid iyo inaad caddeemo iyo wuxuu ku qanci karo inaad u sheegtid kadibna wuxuu dhahay waxay tahay innii laka min annaasixiin aniga waxaan ahay qof ku nasiixeen damba kalihi iyo wixii la mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala sigoo qisada noo sheekanaya wuxuu dhahay waxay tahay fakharaja minha khaa'ifa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam magaaladii asigoo cabsanaya meel uu u leexdo lahayn yataraqab bal cabsi kaliya maana uu iska ilaalinaya ciidamada fircawn ma cabsan jiran qofna kama heybeysan jiran bal iskaba dhaaf qof reer bani israa'iil oo ayaga ay liidi jireen awoodii raba u isticmaali jireen sidii raba ay ula dhaqmi jireen hadduu yahay iska dhaaf weli way ku xadgudbayaan yani ayadoo sidaas ay tahay ilaahay wuxuu dhahay yataraqab asigoo meel iyo meel fiirinaya dhudhuumanaya si ratiib ah meel uu u socdo uusan aqoonin ayuu baxay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay waxay tahay rabbi najinii min alqowmi aldaalimiin rabbiyow iga badbaadi qowmka daalimiinta ah yacni qowmka daalimiinta waa qowmka fircawn haa asiga qof buu dilay laakiin dilka uu dilay asiga kama ahayn inuu qofkaa dili rabo bal wuxuu dhahay hada min camal ashaytaan waa camalka shaytaan si kama ayay u dhacday asiga wuxuu rabay inuu kala celiyo ninkii wuu riixay wuu dhintay asiga ma rabin inuu ninkaa dilo bal laakiin ayaga aarguusasho iyo ciil ay u qabaan muuse calayhi salaatu wasalaam
أي وحي ربا إن نو موسى أي دلان لذلك نو موسى عليه الصلاة والسلام وحولا وحيتهي إلهي وعدالة ما سمعنا يعني ولما جيدين أني كان دلو نجيني من القوم الظالمين إلى الظلميان ويقول حد قدبان دل أنيق أن جيسن أو دل أن جيسن ربا إني قوقت إيساران إذا مركانا دل أنيق أن أقصدن أنيق نينك واكلا توغي فقضى عليه أسجن ولنتي إلهي قوم ظالمين وإلهي بدبادي أسيقو دعيسان يا مال أجيست أوسان أوغين أيو سيسو عدي مقالذي أيو كسيب حينه موسى عليه الصلاة والسلام. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل.